hogaamiyaha xisbiga ODM ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa socdaal ku tagay bariga Kenya wuxuu kula kulmay siyaasiyiin oo ka mid yahay gudoomiyaha Meru iyo xogayaha golaha wasiirada Peter Munya. Raila ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee Moi si uu u bilaabo socdaal 3 maalmood qaadanaya oo ku marayo gobolkaasi sida sheegtay warbaahinta Kenya. Raila oo hadda hogaaminaya xisbiga ODM wuxuu muuqdaa in uu dadaal ugu jiro sida doorashada uu guuleysan lahaa xilli madaxweynaha dalka Kenya waqtigiisii uu dhamaaday oo uusan sharaxi doonin doorashada soo socota. waxaana Uhuru Kenyatta uu taageeraya Raila hogaamiyaha ODM ee mucaaradka ee Kenya ayaa socdaalkiisa uu ku tagay Meru halkaas oo ballan qaaday in dib uu furi doono suuqa xidhnaa ee qaadka ee Soomaaliya haddii loo doorto madaxweynaha. Raila ayaa sidoo kale ballan qaaday in uu sahamin doono suuqa qaadka ee Somaliland iyo Tanzania. hogaamiyaha ODM ee mucaaradka ee Kenya wuxuu sheegay in sidoo kale uu kala hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si loogu ogolaado in qaadka loo dhoofiyo dalkaasi. waxaan kala hadli doonaa madaxweynaha Tanzania si aan suuq u helno. ma jiraan wax cadeymo ah in qaadku uu saameyn ku leeyahay caafimaadka qofka, ayuu yidhi Odinga. Raila ayaa u sheegay dadka deegaanka in uu ka shaqayn doono sidii loo xoojin lahaa dadka reer Kenya xagga dhaqaalaha. Raila ayaa sheegay in xoreyntii dalka Kenya ay ahayd 3 tiir oo ahayd xoreynta marka koobaad ee gobonimada, tan labaadna ay ahayd dastuurka, tan saddexaadna ay ahayd dhaqaalaha. hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya wuxuu ballan qaaday in mudnaanta koobaad uu siin doono soo noolaynta dhaqaalaha iyo la dagaalanka cudurrada iyo saboolnimada. wuxuu sheegay in uu bangiyada u qoondeeyay dhalinyarada si ay u hogaamiyaan kacaanka si ay u keenaan waabari cusub. hogaamiyaha xisbiga ODM ayaa ballan qaaday in uu wax ka qaban doono shaqo la'aanta isla markaana uu awood siin doono dhalinyarada. xildhibaanka laga soo doorto Meru ayaa yidhi waa waqtigii Raila, waan ku soo dhaweynaynaa. tani waa degmo miira waxaana beeralayda ay la ildaran yihiin suuq la'aan kadib markii suuqa Soomaaliya ay xidhay. waxaan idinkala shaqayn doonaa sidii dib loogu furi lahaa suuqa Soomaaliya. hadalka hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya oo taageerayo madaxweynaha dalka Kenya ayaa u muuqda in dalka Kenya aysan weli ka tanaasulin rabitaankeedii in ay hesho suuqa qaadka ee Soomaaliya walow uu jiro khilaaf adag labada dal oo salka ku haya. hadalkani Odinga ayaa warbaahinta Kenya waxay u fasirtay in Kenya ay doonayso in xukunka loo xukumay badda lagu muransanaa ay shuruud ka dhigto Kenya in loo ogolaado qaadkii aadi jiray dalka Soomaaliya, halkaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay joojisay. inkasta oo Kenya ay diiday xukunka ka soo baxay maxkamadda cadaaladda ee dunida, waxaa loo arkaa inay tahay qayb ka mid ah ololaha doorashada ee ka socda dalka Kenya oo ay ku loolamayaan Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenkii Kenyatta Ruto. waxaana dhinac kasta oo aqbala go'aankani maxkamadda ay u noqon doontaa fursad dhinaca kale inay ka faa'iidaystaan oo ay ku galaan olole weyn oo ka dhana dhinaca aqbala, taas oo kalifaysa in Kenya aysan ku dhiiran karin inay aqbasho xukunkani.